بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله waxaynu isku dayi doonaa waqti kooban inaynu ku tilmaamno mucda ama gulucda warka aynu rabno oo ah wax akhris iyo wax qoris. waxaad ogsoontihiin waxyigii ugu horeeyay rabbi soo dejiyey lagu soo dejiyo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka bilaabmayey iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آيات كاسي دورك وهو الرئي قرآن كسود دقي إلهي سبحانه وتعالى وحقولها لي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. نبي محمد أمي بوها وحنا قرن وحنا آخرين waqtiga ay soo degtayna waa qarnigii toddobaad oo aan qiraada iyo wax akhriska waqti ay faafsan yihiin aanay ahayn. haddana min bayn alkalimaat uu qur-aanku ka kooban yahay ilaahay wuxuu ka doortay eraygaa iqra inuu ka bilaabmo waxyigii uu loo soo dhiibay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. isla aayaddaasi laba jeer ama aayaadkaasi laba jeer bay kelimatu iqra ku soo aroortay. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. إسلا آيات كاسي أدواتك وحلقوا قراء إلهي كتل مامي علم بالقلم قلم با إلهي كورمي هي مسألة العلم. أرمها صدام كان صوكوبة وصوت دوبة وحاي تلماميان قيمين إسلام كسيي وحاخرسك iyo meesha uu dhigay. aayad badan oo quraan oo kalena ilaahay uu ku tilmaamaya wax akhriska iyo wax qoristo ay ka mid tahay iyana aayadkii ugu horeeyay ee kuwa ku dhadhawaayay waxyiga soo degay nuun walqalam wama yasturuun. ilaahay wuxuu ku dhaaranaya qalinka iyo waxa la qoro. waxa ka mid ah faqra'u ma tayassara min, waxa ka mid ah walyaktub kaatibun baynakum. يعني إلهي سبحانه وتعالى قرآن بدن بوكا ورمي يا مسألة مركا نسكت ضير مركا دور جانبنا كورمه وورمه وحن كورمي دونا قراءة هي كسيدة وأركان أمد وحخر رابي لهدان وأمد كوريسة أما هرو سعطة كوريا maantana ama horumarka la sheegay xadaaradeed gaadhayna waxyaabaha lagu yaqaanay caanka ku yihiin waxa ka mid ah inay aqoonta siiyaan maalgelin fiican ama aqoonta inay maal gashadaan. dib u dhacay maanta dunida waxa lagu yaqaano waxa ka mid ah inay waxbaristii aqoonta waxa ugu yargeliyaan. ikhwati fi alcaqiida وحلنا قراءته وحي علماء إلى وغذاء للعقل وعنبة مفروض من راشنك اللي عقل بني آدم وحلنا ورفع للجهل وقفك وقود الرئيس كفوقي وحلقت الماما وتوسيع للمدارك وقراتك قفك بني آدم قراشدي سي قراتك صلى الله بالله أيوه. waxaa lagu tilmaamay inay tahay imtaacun linufuus. waa waxyaabo qofku ku madadaasho oo waqtiyadiisa faadiga uu yahay uu nafta ugu raaxeeyo. waxay yidhahdaan waa tasafux licuquuli rijaal. wax akhrisku waa beyjkan aad rogaysa waxaad rogaysaa bay leeyihin cuquushii bini aadamka ee taariikhda bini aadamka soo martay oo dhan. mid aad la nooshay iyo mid qarni hore dhintayba wixii uu qoray markaad rogayso waa cuquusha bini aadamku waxay dhashay oo dhan oo aad rogayso. hanashada uu qofku waxbarasho ama wax akhris uu hantaa waxay qofka ka xoraysaa baa la yidhaahaa cidhiidhiga dhuleed iyo zamaanba.
oo qofku dhul badan oo aanad adin ku gaadheen baad qiraa'a ku gaadhaysaa, dhul badan aan wakhtigaagu ku gaadhsiiyeen ama aanad noolaynna wixii joogay baad akhriyaysaa. waa daaqad bay idhaahdaan laga daawado alfikri alinsaani, qofka bini aadamka iyo aqoontiisaba waa daaqad laga daawado. saynu wada ogsoonaynaa aqoontu waagii hore waa laysu gudbin jiray shafawiyan, afkaa laysaga gudbin jiray. marka qof dhintaba, qof aqoon-yahani markuu dhintaba waxay la micno ahayd laydareeri gubtay. laakiin markay kitaabadu bilaabantay ama qoraalku uu bilaabmay, aqoonta waxay noqotay mid dhaxal la reebi karo noqon karta oo tawsiiq iyo qoraal iyo books ku guda jirta oo dib loo baran karo. casrigan aynu hadda joognana waxay idhahdaan aqoonta ama waxbarashada ama wax akhriska iyabaaba isku xidhmay quudkii dadka, oo waxay leeyihiin hadda waxaa dunida sii cidhiidhiyoobaysa shaqada uu qaban karo qofkan aan waxna akhrinin waxna qorinin, shaqada u bannaan baaba sii yaraanaysa. ummad kastoo bay idhaahdaan aan dhasheeda iyo ubadkeeda iyo dadkeeda u tababarin wax akhris joogto ah iyo inay koraan, xataa hadduu wax bartay bay leeyihiin wuu ka dhacaya. waayo maanta waxay idhaahdaan aqoontu 15% wax ku dhodhow ayaa sanadkii ama dhowrkii sannadoodba aging uu ku dhaca, gabooba. marka fanni kastoo aad maanta baratay waxay leeyihin haddii aanad la soconin aqoontaadu way gaboobaysaa, saa daraaddeed waad ka dhacaysaaba meesha. idan qiraa'adu waxay idhahdaan maanta dadka aan ku dadaalin qiraa'adu wuxuu la mid yahay yani ummiya ama aan xadaaradda ka hadhay. bale waxaa la tilmaamayaa aqoonta maanta dunida taalla bay leeyihin 30kii sannadooda ugu dambeeya 90% wax ku dhadhow waa soo kordhay. idan ninka dhakhtarnimo bartay qabla 30 sana ee aan refreshment dib u samaynina dib loo cusboonaysin wax ma oga. walidalik akhrisku caalim الرياضات الفرنسي rené la odhan jiray, rené Descartes ayaa wuxuu odhan jiray qiraa'ada kitaabka fiicani, kitaab fiican markaad akhrido waxay la mid tahay buu yidhi adigoo la doodaya cuquushii ugu waaweyneyd ee dunida soo martay buu leeyahay. ama waxay ku tilmaamaan kitaabku bay idhaahdaan ama buuggu waa minaara, waa calaamad bixaaru zaman alcadiima dadka loo taagay ay wax ku hagtaan, calaamadahan wax lagu calaamadsado ayuu ka mid yahay. dhan kale markaan u tilmaamo umamka la rabo inay dib u dhacaan, maalan maraykanka, dadka madow baa lagu gumaysan jiray, beri dhaweyd baa la xoreeyey. qaanuunka maraykanku ee ninka cadi uu qortay waagaasi wuxuu sheegayey ninka madow in laga mamnuuco inuu waxna akhriyo waxna qori karo. waayo bay idhahdaan hadduu wax barto tamarud baa bilaabmaya. xataa bay idhaahdeen injiilka looma ogola, xataa baybalka ninka madoobe inuu akhriyo umay ogolayn. waa qiraa'a ninka madoob oo dhan kiisa addoonka iyo kiisa xorkaaba laga mamnuucayay. bale waxaa la yidhahdaa qaanuunkii wakhtigaasi waddanka maraykan ka jiray wuxuu ku xukumayey ijraam ama dembiile inuu yahay ninka madoobe isku daya inuu wax akhriyo ama wax qoro isku daya. waxay tilmaamaysaa, waa taariikhu lqiraa'a, alberto manuel suu ku soo naqlinayo, argentiniga ninkana kitaabka qoray. waxay tilmaamayaan oo masaladan ay sheegaysaa umamkii la rabay in la gumaysto ama la celiyo, qaabka ugu fiican ee loo gumaysan karayo wuxuu abaa la leeyahay in laga tirtiro inay wax akhriyi karaan ama wax qori karaan in loo diido. maantana waxaynu naqaanaa umamku siday u kala horeeyaan in lagu qiimeeyo marar badan illiteracyga ama wax qoraan la'aanka iyo wax akhris la'aanka. waxaad sawirtaa maanta idinkoo denmark jooga oo aan wax la akhrinin, bal sawir iyadoo aan qofku aanu akhriyi karaynin waddada boodhadhka ku qoran ama khariidadaha maabiska meelaha yaalla ama raashinka waxa ku dul qoran ama daawada waraaqda yaree dusha kaga qoran ama alaabtaad soo iibsanayso waraaqahan yaryaree la socda. dadku aan wax akhri karin, yani noloshu may kala socoteen weeyaan.
qiraa'adu marka waxaynu tilmaamaynaa inay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha. si wakhtiga aan isugu fillaysiiyo marka waxaan tilmaami doonaa dhowr shay. qayb waxaan tilmaami doonaa wax akhriska iyo kitaabada iyo waxa fudaydiya. qaybna waxaan ka warrami doonaa salafkii ummadda tan iyo dadkii hore ee saalixiinta ahaa iyo wax akhriskoodu noocu ahaa. qaybta koowaad waxaan ku tilmaamayaa qofka cimrigiisu wuu yaryihi. si aad cimri badan u jiri karto waxa ugu fiican ee laga faa'iideeyaa waa wakhtiga. wakhtigana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaame inaan dadku qofna meeshiisa ka dhaqaaqaynin 4 su'aaloodoo la weydiiye mooyaane. 4taas su'aalood waxaa ka mida buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam can cumrihi fiima afnaah wa can shabaabihi fiima ablaah. cimrigiisii wuxuu ku bixiyey qofku saacad kasta iyo daqiiqad kasta akhre waa lagu weydiinaya. inaad tv iska hor fadhiday, inuu boodboodkaaga dhammaaday, wixii aad qabatay. waxaa kaloo lagu weydiinayaa siiba wakhtigii aad dhallinyarada ahayd. qofka dhallinyaradii waa wakhtigaad wakhtigaaga keligaa leeday ee aad xooggan tahay ee wax walba ay soo korayaan, wax waloo jidhkaaga ka midiba uu sii fiicnaanayo. wakhtigaa wixii aad ku qabatay waxyaabaha ugu quruxda badan leh markaa wakhtiga laga faa'iideeya waxaa ka mida in wax la akhriyo. imaam ibn aljawsi ayaa wuxuu tilmaamayey maadaama qofku zamaanku uu cimrigiisiiba yahay ma habboona buu yihi wakhtigiisa wax ka mida inuu lumiyo ee afdal alacmaali aw alaqwaal inuu kaga faa'iideeya ayaa ugu khayr badan. qiraa'aduna waa waxa ugu badan ee wax laga faa'iidaysan karo. masaladan dantan kale ayaan idin tilmaamo. qofka maalintii 10 daqiiqo wax akhriya waxay dhahdaan daqiiqadii hal beyj baa la akhriyi karaa. qofka 10 daqiiqo maalintii wax akhriya 10 beyj buu akhrinaya. qofka maalintii 10 daqiiqo wax akhriya waxay dhahdaan daqiiqadii hal beyj baa la akhriyi karaa. qofka 10 daqiiqo maalintii wax akhriya 10 beyj buu akhrinaya. hal sano haddaad maalin kasta 10 daqiiqo akhriyaysay macnaheedu waxa weeyaan 3650 beyj baad akhriday. waa mawsuuca, waa encyclopedia. that means 10 volumes baad akhriday. 10 volume mawsuuca xadiida ama mawsuuca tafsiira ama kan hal sano gudaheed baad ku dhammayn kartaa adigoo akhrinaya maxay 10 minutes only. 10 daqiiqo adigoo wax akhrinaya haddaad joogtayso oo maalin kasta 10 beyj 10kaa daqiiqo aad akhrido sanad markaad joogto yacni bil kasta hal volume baad dhammaynaysaa. volumku 300 beyj meelaha kama badna, 360 beyj. macnaheedu waxay noqonaysaa bil kasta inaad hal volume dhammaynayso. wax 10 volume ka badan ayaad dhammayn kartaa sanad gudihii. haddaad nuso saaca wax akhrinaysa maalin kasta ka waran. haddaad maalin kasta saacad wax akhrinaysa ka waran, maxaad baran kari lahayd? cilmi intee leeg buu noqon lahaa cilmiga aad baranaysaa? sidaa awgeed waxaan leenahay ikhwati fi lcaqiida maalin kasta haddaad 2 beyt oo gabaya qaybayso 10 daqiiqo gudahoodaad isku dayda inaad ku qaybto 10 sannadood waxaa laga yaabaa inaad ku qaybto 7,000 oo beyt wax ka badan 7,000. waa mutuunta cilmigee uu u baahan yahay nin kasta oo dhallinyaro oo raba inuu cilmi sugaa dhammaanteed 10 sannadood buu ku qaybi karaa isagoo maalintii 2 beyt oo qura qaybaya. 2 beyt oo qura haddaad qaybto 7,000 oo alfiyaad qaybi kartaa. macnaheedu waxa weeyaan mutuuntii cilmiga ahayd aad u baahnayd oo dhan laabtaaday kugu jiraysaa. walidaalika waxaan leeyahay kow markaan qiraa'o ka warramayo waxa koowaadaan ka warramaya waa wakhti. inuu qofku wakhtigiisa baykhaamiyo oo ilaashado oo isku dayo wax faa'iido leh inuu geliyo. 2 waxaan tilmaamaya waxa weeyaan qiraa'adu hadaf bay u baahantay. in hadafka la taxdiidiyo goolka aad qiraa'ada ka leedahay
oo qiraa'ada laguma qiimeeyo tirabadnideeda ama dherarkeeda ee waxaa lagu qiimeeyaa diqadeeda iyo qiimaheeda. yani waxaad akhriyaysaa siduu faa'iido u leeyahay. marka qofka uu rabo inuu wax akhriyaa ee dhallinyaradii waa inuu isweydiiyaa, maxaan akhrinayaa, sabab baan u akhrinayaa, qaabkaan u akhriyaa, maxaan akhrinayaa waa inaan isweydiiya. waxaad akhrinaysa oo dhima hadday tahay manchester baa liverpool ka badisay, waxaad habeen iyo maalinba akhridaa hadday tahay waxba faa'iidi maysid. waxaad maalin iyo habeenba akhridaa hadday tahay jariidada sheekadan bejka koowaad ku qoran something waa laga yaabaa languagekaagu in yar inaad wax akhriyi karta u yaro dhismo, laakiin qiimo nololeed ma leh, wax kaa soo raacaya ma jiro. waxaad akhrinaysaa markaa waa inuu noqdaa wax hadaf leh. weliba wuxuu siday u kala muhiimsan yihiin qofka waa inuu akhriyaa. kow, waxa waajibaadka ku ah waa inuu akhriyaa ee diintiisa kaga waajiba. laba, waxa takhasuskiisa waa inuu akhriyaa ee uu baranayo. dadka badh baa wax akhriya haddana ummiya. adigoo wax akhrinaya si aad u tukata haddaad garan weydo qiraa'adaadu faa'iido ma leh. brofessoraa salaada tukan karayni ama garanayni salaadiisa waxay ku ansaxaysaa qiimo ma leh. idan waxaad akhrinayso waa in la garan karaa hadafka aad ka leedahay. qaabka wax loo akhriyaana waa kala gedisan yihi, waayo waxaad akhrinaysa buu ku xidhayay. mar waa qiraa'atu tasliya oo waad iska rogrogaysaa, yani buug taariikha ama sheeka ama novala ama wax la mida sida loo akhriyaa waa si gaara. buug cilmiya markaad akhrinaysana waa qiraa'atu tafahum wa tadabbur, waa ka gedisantay, waayo sentenisyada dhexdoodaa la akhriyaa. markaad qiraa'a istikshaafiyya mutaalaca guud markaad samaynayso qaabka loo akhriya u kala gedisan yihi. idan buugga aad akhrinayso iyo hadafka aad ka leedahay waa in la garan karaa. laakiin qiraa'adu waxay u baahan tahay sabir iyo isbaris. wax walbana sabir baa lagu gaadhaa. thomas edison odagii la odhan jiray ee maraykan, marka laga reebo casrigan dambe ragga wax soo saaray, dadkii hore ama qarnigii labaatanaad qaybtiisii hore ilaa iyo intii la garanayo waa ninkii ugu badnaaye inventions lahaa, wax soo saar, ikhtiraacad. iyo baan filayaa 93 baateen buu leeyahay. 9 ka midi waa dhisayno. 1480 baateen oo ah qalab uu soo saaray ayaa waxay weydiiyeen cabqarinimadu maxay ka koobantahay bay yidhaahdaan. ma ilhaam baa wuxuuna ilaahay kugu ilhaamay fikrad kugu soo dhacdayba? markaasaa wuxuu yidhi 1%na waa ilhaam, 99na waa carqu jabiin buu yidhi, waa dadaal iyo sabir. waxaan uga jeedaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun. waxaynu u baahan nahay qiraa'ada markaynu leenahay wax akhri. marka hore qofku qiraa'ada uu bilaabayo way ku dhib badan tahay. maalmaha hore waa daal miidhan. waxay u baahan tahay inaad qiraa'ada si macquula u bilowdid. waxaad u baahan tahay inaad mumaarasa ku celcelinaad heshid. waxaad u baahan tahay kutubtaad akhrinaysa inay mustawahaaga tahay. haddaad kitaab kaa weyn isku rarto, kutub culammada loogu talagalay, fatxulbaari haddaad tidhaahdo qiraa'a ka bilow waxba ka keeni maysid. fatxulbaari ardayba looma qorina waa kitaab culamo loogu talagalay. idan kitaabka aad rabto inaad akhridaa inuu mustawahaaga yahay, waayo ninka kaatibkii markuu kitaabka qorayo dad gaar ugu talagalaa, maaha kitaabku iska obin qof waliba u akhriyo. waxyaabaha fududaynaya inaad wax akhrido markaa waxaa ka mida baynu leenahay. kow, inaad ilaahay tala saaratid. laba, dadka aqoon-yahankaa inaad la tashatid ee sabjiga kan ama fanniga kan kaaga aqoonta badan leh. saddex, inay mar kasta maskaxdaada ku jirto
dadka dadaala iyo wax soo saarkooda iyo dadka iska fadhiya iyo wax soo saarkooda. haddaad maalin kasta 3 saacadood TV daawato, marka la isku dardaro waa imisa? waa kumankum saacadood bay noqonayaan, laakiin maxaa ka soo baxaya? alxaasil waa ibir, waxba ma jiraan. laakiin haddaad wax akhrinayso 3 saacadood maxaad u malaynaysaa maxaa ka soo bixi lahaa? yacni cabqari, adduunka aqoon-yahanka ugu weyn baad noqon kari lahayd haddaad maalin kasta 3 saacadood wax akhrinayso. encyclopedia guuriyaad noqon lahayd, qof wax walba la weydiiyaad soo bixi kari lahayd. wax akhrisku wuxuu kaloo u baahan yahay kow taqyiid alfawaa'id, waxay culammadu yidhaahdaan. buuggaad akhrinayso lama xifdiyi karo inta badan, qofku waxbuu ilaabaa. waxay u baahan tahay waxaad ka faa'iiday inaad qorto. laba qaab dadku mid unbay isticmaalaan, ama buugga laftiisay jaldigiisa ku qoraan, intay soo rogaan jaldiga bage walba wixii uu ka akhriyey, ama cards bay samaystaan ay wax ku qoraan, ama notebook uu iska sito oo uu ku talagalo buug kasta uu akhrinayo wixii uu ka faa'iiday inuu qoro. weliba waxa fiican iyadoo mufahrasa inaad qoratid, yacni iyadoo funuunta u qoran. wixii aad buuggan ka faa'iiday, masaa'il fiqiya ahayd inaad fiqiga ku darto, hadday masaa'il science ahayd inaad bejka science ku darto, hadday masaa'il taariikhiya ahayd inaad meesha taariikhda ku qorto. fawaa'idda inaad mid walba gaarkeeda aad u qortaba ku fiican tahay. waxaa kaloo fiican siiba wakhtiga wax la baranayo, buug kastoo aad akhrido ishkaalaad iyo madmadowba kaaga soo baxaya iyo masaa'il aad hore u fahmi weyday. inaad qortid masaa'ilka aad fahmi weydo oo aad markaasi kula noqoto, ama kutub kaliya buuga kaloo aad ka baadhayso, ama murshid aqoon-yahan aad ku tiirsan tahay oo fanniga kanaad wax ka weydiiso, ama calal aqal sheekhan cusub ee iminka dunidu wax weydiiso. sheekh google sooma taqaaniin? ogle haddaad ku dhufato jawaab kasta waad soo helaysaa, tiro badan leh. marka aqalu shay inaad isku daydo mas'aladii kaa hortimi ama mushkiladii ku qabsatay inaad dib u baxtii karto. waxaana ugu fiican haddii subjectskaasi aad akhrinaysa aad u leedahay qof murshida, aqoon-yahan kaa roon. waayo culammadii hore waxay odhan jireen alcilmu makhzuunun fii butuuni اlkutub wa mafaatixuhu biaydi اlculamaa bay odhan jireen. waxaa la odhan jiray cilmigu wuxuu ku khasnadaysan iyo ku duuduuban yahay kutubta dhexdeeda, ayaa makhsino oo lagu xidhay. stoorku waa halkaa, furayaashana culammada ah ayay odhan jireen. ninka caalimkii wuxuu ku barayaa how to read iyo waxaanaad akhriyaysa sidii aad u fahmi lahayd. idan waxay ku fiican tahay inuu qofku cid uu ku xidhma inay jirto. waxay kaloo ku wanaagsan tahay qiraa'adu inay tadaruj yeelato, koritaan inay yeelato. marka hore kuwa fudud inaad ka bilowdo, sabji kasta oo aad bilaabayso meel fudud inaad ka bilowdo oo da'daada iyo fahamkaagu ku salaysan, dabeetana aad korto. haddaad qiraa'ada ku celceliso faa'iidadu way ka badataa sidii hore. yacni buugaad mar akhriday ama kitaabaad mar akhriday, haddaad second time akhrido waxaad markii hore ka fahamtay wax ka badan baad fahmaysaa. walidalik baa adiibkii weynaaye masriga caqaad la odhan jiray baa wuxuu yidhi 3 buug oo fiican inaad akhrido waxa ka sii fiican buu yidhi buug fiican inaad 3 goor akhrido. yani 3 buug oo fiican inaad 3 daba dul marto waad ilowdo. caqaad wuxuu leeyahay waxa ka fiican buug fiican inaad 3 jeer akhrido. waxaa kaloo waxyaabaha qiraa'aadka fahamka kordhiya ka mida siiba dhallinyarada marka la yahay in qiraa'a jamaaciya la yeesho. dadku inay naadiye qiraa'aad yeeshaan, club, oo ama buug laysu diro maalan 10 chapter uu ka kooban yahay, qofba inuu chapter soo akhriyo, dabeetana laysu wada akhriyo, laysu sheego. waayo waxay keensanaysaa chapterka haddii lagaa sugayo inaad si fiicanna u soo akhrido, si fiicanna u fahamtid, khulaasadiisiina inaad qofka kale u gudbisid, kuwa kalena khulaasadii samarigii buuggoo dhan inaad si fudud u heli kartaan. aqoontiiyo dadku isweydaarsanayo, balliquu canii walow aayadiioo dhacayso dadkiiyo wax isgaadhsiinaya.
waxa kaloo fiican bay dhahaan dhallinyaradu inta badan ariiqatulimtixaan qiraa'adkooda inay ku daraan inay wax iska weydiiyaan. hebel buga ma akhrida dabeetana la iswarsado oo wax la iska weydiiyo. wakhtiga daraaddii masaladaan ugu dambaysiinaya waxa weeyaan inay akhridaan dadkii waaweynaa biografigooda. masaladan aada ugu fiirso si himmadaadu ay u kacdo oo ku dayashadaadu ay u fiicnaato oo qiraa'o waxtarle aad u akhrido inaad akhrido dadka nawaabiqda ah ama dadka roonroon ee aqoon-yahankii dunida soo maray la yaqaanay, ama muslim ha ahaado ama gaalba ha ahaado, aqoon-yahanka rasmiga ee la yaqaanay biografigooda inaad akhrido. amhilaan idin siinaya marka, weliba amhilo islaamiya aan idin badiyo. alkhatiib albaqdaadi raxmat ullaahi calayh, sheekhii la odhan jiray khatiib albaqdaadi oo baqdaad jooga ayaa safar waxaa ku soo baxay sheekh la odhan jiray ismaaciil ibnu axmed idariir oo nisaabuur dad ka yimi buu la socdaa. makay ku socdaan, baqdaad bay soo mareen. waxaa ogaaday alkhatiib albaqdaadi baa ogaaday inuu magaalada joogo ismaaciil ibnu axmed idariir. marka isaga iyo culamo kaloo wada socotaa u timi, waxay ku yidhahdeen waxaanu rabnaa kitaabka bukhaari inaanu kugu dul akhrino oo aad noo saxdid. kitaabka bukhaari weyn aad taqaaniin waa 4 majalladood meelahaasi. nin safaroo socota abaa lagu dul akhrinayaa. ninkan safarkee socotada waxaa loogu dul akhrinayaa sanad caaliya buu haystaa oo bukhaari raawiga rasmiga kitaabkiisa wariya alfarabri waxaa ka wariyay isna kushmihani buu isagu ka sii qaatay. bacda almaqrib bay u fadhiisteen. khatiib albaqdaadi baa akhrinaya kitaabka, culamada kalena way dhegaysanaysaa, sheekhuna wuu tasxiixinayaa. dabeetana maqribkii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la akhrinayay, waa la kala tegey. kitaabka bukhaari weyn aad taqaaniin waa 4 majalladood meelahaasi. nin safaroo socota abaa lagu dul akhrinayaa. ninkan safarkee socotada waxaa loogu dul akhrinayaa sanad caaliya buu haystaa oo bukhaari raawiga rasmiga kitaabkiisa wariya alfarabri waxaa ka wariyay isna kushmihani buu isagu ka sii qaatay. bacda almaqrib bay u fadhiisteen. khatiib albaqdaadi baa akhrinaya kitaabka, culamada kalena way dhegaysanaysaa, sheekhuna wuu tasxiixinayaa. dabeetana maqribkii baa la bilaabay ilaa iyo salaadii subax baa la akhrinayay, waa la kala tegey. habeenkii dambe maqribka laysu yimi ilaa iyo salaadii subaxee kale la akhrinayay. sheekhi laakiin wuu safraya. subaxii dambea loo yimi, barqadii baa la bilaabay ilaa iyo maqribkii baa la waday, maqribkii baa haddana la waday ilaa iyo salaadii subaxee dambea la waday. intaasaa waxaa lagu dul dhameeyey 4 volyum. kitaabka bukhaari dhammaantii weliba qiraa'adu akhrinaya waxaa la yidhahdaa qiraa'o degan oo la rabo dadkan kale kutubtooda inay saxdaan. qiraa'adan lagu sheegaya waxa weeyaan rag baa kutub wada sita, kitaabkiisa sani inaan wax qaladi ku jirin buu rabaa inuu saxdo. sheekhan xaafidka abaa laga saxanaya oo kitaabka haya, kani wuu akhrinaya, markaa sheekhuna wuu dhegaysanaya, kuwanee kutubtaa la saxanaya. marka waa qiraa'o la wada dhegaysanayo, dadkao dhan wada dheg yahay oo la soo jeedo. salaad maqrib ilaa salaad subax, salaad maqrib ilaa salaad subax, barqadii dambe ilaa iyo salaadii subaxee dambe, inta ka dhexleh ayaa bukhaari lagu dhameeyey. imaam ibn alxajar alcasqalaani ayaa la weydiiyey arrinkaas, maalinna sheekh adiga ma kugu dhacday baa layidhi niwaaga berigiisii ilaa gabalka dhaciisii inaad wax akhrinaysay, maalintii oo dhan inaad wax akhriday? markaasuu wuxuu yidhi maya, laakiin aniguba kitaabka bukhaari markaan sheekha ku akhrinayay 10 majlis baan ku akhriyay buu yidhi, 10 fadhi oo aan la fadhiistay sheekha ayaan ku dhammeeyey. ee fadhiyadaydaa kala googo'naa buu leeyahay, haddii 10ka fadhi laysku dari lahaa wuu ka yaraan lahaa intii uu ku akhriyay khatiib albaqdaadi. 2 maalmood iyo badbu isna ku akhriyaa layidhi marka laysku daro
wakhtiguu gaadhayay. markaasuu intuu sii hadlay buu wuxuu yidhi laakiin qiraa'adaydu maxay ka gaadhaysaa tii khatiib albaqhdaadi marka laga eego buu yidhi xagga sixada iyo wanaagga iyo faa'iidaynta iyo gaadhsiinta dadka kale uu gaadhsiinaya la dhegaysanayay. ibnu xajarkaas saxiixu muslim 5 majlis buu ku akhriyay baa la yidhi. waa kitaabka dhana saxiixu muslimka la yidhaahdo 5 fadhi ayuu ku dul akhriyay. waxaa la yidhahdaa muddo 3 bilood ku dhodhow 2 bilood iyobay yidhaahdaan iyo bil uludkeed 1/3 of a month 3 dalool yacni 2 bilood iyo 15 casho wax ka yar oo uu dimashq joogay bay yidhaahdaan 100 volume buu akhriyay bay yidhaahdaan. 100 volume akhri karaysaa waa maxay? 2 bilood iyo 15 casho ayuu ku akhriyay baa la yidhaahdaa 100 mujallad 100 volume. waxaa laga yaabaa inaad leediin sidee waxaan loo akhrinaya? horta ugu horrayn waxaad ogsoonaataa surcat alqiraa'a waa wax la barto. maalan qofka cusub markaa wax loo dhigayo waxaa loo dhigaa letters soo maaha a b c d alif ba ta tha erayaa loo dhigaa. markuu erayadaa qaybo suuraddaasi madaxa degto ayaa isku darkooda loo dhigaa al yacni erayo 2 xaraf ka kooban. saasaa loogu soo wadaa. qofku markuu qiraa'ada baranayo xaraf bay ishiisu u qabataa. alxamdu lilaahi saasuu wax u akhriyaa qofka cusubee baranaya. marka dambe qofku waxay gaadhaa erayada tani inuu maskaxdiisa dego. ishu markaa eray bay u qabataa. haddii qofka lasii traingareeyo markaasi 2 bay u qaban kartaa. haddii lasii traingareeyo 3 bay u qaban kartaa. haddii lasii traingareeyo 4 bay u qaban kartaa. xad bay ragga qaar sheegaan halka sadar in mar qura la akhriyi karo ishu qaban karto. laakiin waxay u baahan tahay inuu qofku traininka qaato. iminkaba koorsooyin bay bixiyaan meelaha kan lagu baro qofka fast reading ama surcat alqiraa'a lagu baro. culammada tani say wax u akhrinayeen waxa kane waxay u noqdeen malako ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala. walidalik alxaafid almuzi imaamka la yidhaahdo oo weliba la jooga baa la yidhaha alxaafid albarzaliy kitaabka la yidhaha almucjam alkabiir. mucjam alkabiirku waa 25 volume 60 fadhi buu ku akhriyey. 60 goora uu soo fadhiistay ayuu wuxuu ku akhriyey maxay? mucjam alkabiir dhammaantii 25 volume. alxaafid alciraaqi musnadu imaamu axmed hadda markii la takhriijiyey lasii balballaadhiyey waa 55 mujallo 40 kun oo xadiis wax ku dhadhow baa ku yaal bay yidhaahdaan. ibnu lkhabaaz sheekh la yidhaahdo wuxuu ku dul akhriyey 30 fadhi 30 ballan 30 goor buu kolba la ballamo uu ku dul akhriyey uu ku dhameeyey. yacni waxaad garanaysaa dadka kani wakhtigu qiimuhu ugu fadhiyey iyo qiraa'adoodu say surca u lahayd. surco qura maahay waxana u fahmayeen. ibnu catiya tarjamada laga qoray qaadi ciyaad iyo ibnu bashkuwal labadooda kitaab algunya iyo sila ay ku qorayaan wuxuu leeyahay waxaa la tilmaamaya inuu leeyahay kitaabka saxiixu lbukhaari 700 jeer baan akhriyey. haddaad akhrido maalan risaalo uu qoray nin sheekh sacuudi oo cali alimrani la yidhaahdo almushawiq ila alqira'a kitaab la yidhaahdo cajab baad u dhimanaysaa salafka wuxuu ka soo naqlinayo. waxaad arkaysaa bukhaari mid le 150 jeer baan dhameeyey oo akhriyey, qaar le 280 jeer baan dhameeyey, qaar le 50 jeer baan dhameeyey, qaar le 40 jeer baan dhameeyey. innaga qof mar dhameeyey maynagu jiraa hal mar intuu akhriyey dhinaca ka akhriyay xagga ka baxay. iyana waxay leeyihin 50 jeer 60 jeer baa la dhameeyey. الشيخ السلفي شيخ الله يرضى وحده سمعت ابن طاهر يقول waxaan maqlay buu yidhi sheekh ibnu taahir la yidhaahdo leh kitaabka saxiixaynka bukhaariyo muslim weeyaan iyo sunanka abi daawuud 7 jeer baan gacantayda ku qoray buu leeyahy. intuu qoray ayuu iibiyey, markaasuu qoray oo iibiyey. waa volume iska kitaab dee waagii hore madbacadii ma jirin suusaa ma ogidin
wixii caalamulislaami kitaab yaallo dhan rag baa gacantooda ku qoray, iyagaa madbacadiisu ahaa. wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud 7 jeer baan mid walba gacantayda ku qoray oo iibiyey. sunan ibnu maajana isaga 10 jeer baan qoray intii aan rayi joogay buu leeyahay, magaalada rayi la yidhaahdo. waxa uu tilmaamayaa abilfaraj ibnu ljawsi markaa laga warramayo taariikhdiisa, waxay yidhaahdaan wakhtigiisa waxba muu dayici jirin. maalintii bay yidhahdaan ilaa 4 buug buu qori jiray. sanad kasta bay ku tilmaamaan 50 volume uu gaadhi jiray wuxuu qoraa. wuxuu akhriya hadda ma aha, waa wuxuu qorayay ayaa sanad kasta gaadhayay bay leeyihiin 50 ilaa 60 volume. dhashiisii nin ka midabaa wuxuu yidhi waxaan arkay cumrigiisu wakhti uu gebagaba ahaa isagoo mimbarka saaran oo khudbadaynayoo leh katabtu biisbicaya haatayni 2000 mujallad. labadaydaa farood ee aa arkaysaan 2,000 oo volume baan ku qoray isagoo leh. 2,000 oo volume ayaan labadaydaa farood ku qoray isagoo leh. yani dadka kan qiraa'adu maalan ibnu manduur sheekha la yidhaahdo lisaan alcarab dictionarygan ugu weyn af carabiga ninka leh, waa dictionary aad u weyn 20 mujalladooda lisaan alcarabka la yidhaahdo. ibnu lmanduur maxamed ibnu mukaram baa la yidhaahdaa magaciisa. waxay yidhahdaan kutubta mutawalaadka oo dhan wuu soo ikhtisaariyey inta ugu badan. ikhtisaarku waa maxay? waa kitaab dhan intaad akhrido inaad soo koobto oo wax yar ka dhigto. kutubtu ikhtisaariye maxaa ka mid ah? taariikhu baqdaad waa 50 mujallo. waxaa ka mid ah taarikhu ibnu casaakir, taarikhu dimashq la yidhahdo, waa 80 volume. 80 volume buu intuu akhriyey soo koobay. 50 volume buu intuu akhriyey uu soo koobay. waxaa lagu tilmaamay mufradaat ibnu baytaar intuu akhriyey buu soo koobay. waxaa lagu tilmaamaa jaahid kitaabkiisii xayawaan. waxaa lagu tilmaamaa yatiimadii thacalabi, adhakhira libnu basaam. intaasoo kitaab baa la leeyahay kutubta waaweyn ka mida intuu akhriyey buu dhammaantood soo koobay. wuxuu ka dhintoo gacantiisa ku qoray bay leeyihiin 500 volume. maaha wuxuu soo iibsaday kama warramay iyo kitaabadu gatay iyo meelaha wuxuu soo qaatay. kuwuu gacantiisa isagu ku qoray 500 volume oo gacantiisa ku qoray buu ka geeriyooday. idan waxaynu leenahay salaf ilumma ama ummadatan dadkeedii hore wax akhris iyo qoris xadkaasay ka gaadhsiinayeen. qof quri uu 500 volume qori karo ama dhowr majlis dhowr goobood oo soo fadhiisto kitaab 3 volume ama 4 volume oo ku dhammeeyo. siday wax akhrisku la ahaa maalan imaam albayhaqiy alxusein ibnu axmed albayhaqi waa kutubtan tirada badan leh ayaa waxaa la tilmaamaya abu sacd samcaani wuxuu ku tilmaamaya kitaabkiisa la yidhahda taxbiir fi lmucjam alkabiir. waxaa la kulmay buu yidhi bayhaqi oo xanuun ku dhacay oo 10 faroodba go-een. xanuun baa ku dhacay markaa intanba waa la jaray, gacmo way go-ayiin oo kafkoo quri u soo hadhay aan wax kale ku soo hadhin. oo intuu qalinka labadaa ku qabsado kaaqidku waa haragiiray wax lagu qori jiray, waraqaa wax lagu qoro intuu dhulka dhigto cagta ku qabsado buu yidhi wax qora oo far aad u qurux badan oo la akhriyi kara qora oo maalintii ilaa iyo 5 daaqa yacni 5 buu oo yaryar maalintii qora buu leeyahy. waa nin faruuba go-an yihiin, faruu way go-an yihiin. haddana waxa uu qorayaa buu leeyahay maalin kasta 5 daaqaatin min alkaaqid buu qorayaa buu leeyahay. taas waxay tilmaamaysaa culammadii hore iyo mowqifkoodu siduu ahaa. idan qofka muslimkaa waxaa looga baahaya bay leenahay haddaynu rabno inaynu wax baranno, haddaynu rabno ummadda inaynu kor u qaadno, haddaynu rabno jiilashii hore inaynu bedelno, haddaynu rabno dunida maanta jirta loolakeeda inaynu ka qaybgeli karno, inaynu baranno in waxna la qori karo waxna la akhri karo, inay qiraa'adu qofka ka mid noqoto noloshiisa caadiga uu ku xisaabtamo,
inuu qof kastoo muslimi maalintii ugu yaraan uu akhriyo maxay hadday qur-aanka tay jis qur-aan uu akhristo hadday bukiskiisa ama daraasaadkiisa qofka muslimkii inuu yeesho timetable wax ku akhriyo oo uu noqdo noloshiisa caadiga ah qiraa'ada iyo kitaabadu inay wax rasmiya ka noqoto waxaan uga dalleeya markaa dariskan oo dhammi waxa weeyaan inaynu baranno wax akhriska iyo wax qorista iyo ku celcelinta rag qura maaha rag iyo dumarba saan bay ahaan jireen dadkii muslimiinta hore saan baa wax loo qori jiray saan baa wax loo akhri jiray khatiib albaqdaadigaan idin tilmaamayey ayaa maka yimi markaasuu maka wuxuu ugu yimi gabadh ka mida culammadii muslimiinta ee waaweyneyd kariima gabadh loo odhan jiray ayuu ugu yimi kariima bintu axmed almarwasiya waa dumarkii xufaad ahaa gabadh ka mida caalimada 100 sanay gaadhay may guursan waxbay baran jirtay ayuu u yimi kitaabkii bukhaari kariimiyana waxay ka qaadatay kitaabka bukhaari sheekh ismaaciilkii hore ciddii uu ka qaatay iyana sanadkeedu waa can ilkushmihiniy can ilfiraburiy dabeetana imaam albukhaari ayuu u yimi waxa la tilmaamaa iyadana wuxuu ku dul akhriyey 5 maalmood ayuu saxiixu albukhaari ku dul akhriyey waa saxiixu maalintii hore ku akhriyey ayuu kariimana mar labaad ka tasxiixsanaya oo ku akhrinaya 5 maalmood waxaynu tilmaami karnaa ikhwatii fi lcaqiida culamadii muslimiinta ahayd ama muslimiintii hore nabigu calayhi salaatu wasalaam waxna ma qori jirin waxna ma akhriyi jirin ilaahi subxaana wa tacaala mucjiso wuxuu uga dhigay isagoon waxna qorin waxna akhrin in lagu soo dejiyo waxyi yutla la akhriyo oo uu dadka gaadhsiiyo in lagu yidhaahdo iqra awal waxyi ku soo degaa uu noqdo dabeetana muslimiintu way ka faa'iideeyeen oo uu dadka gaadhsiiyo in lagu yidhaahdo iqra awal waxyi ku soo degaa uu noqdo dabeetana muslimiintu way ka faa'iideeyeen waxyaabaha fukahaadka haddaan idiin akhriyo ee culammadii muslimiintii hore waxaa la tilmaamaa yani qiraa'aadka iyo wax akhrisku sida ay ummadda muslimiinta dhexdooda u ahaayeen wax hayru caadiya waxay tilmaamaan culamo wax akhris dilay wax akhris u dhintay waxay sheegaan culamo kutubi dishay fukahaadka markay ka warramayaan axad alculamaa'i naxwiyiin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabeetana salaaddii jimce masaajidkuu fadhiyey bacda alcasar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay idhaahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo waanu yaro dhagac cuslaa baa la yidhaahdaa isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi dabeetana wuu riixay god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay maalin labaadiiba wuu go'ay waxay yidhahdaan wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhimatay waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen dabeetana way dishay waxay tilmaami jireen ragga qaarkood imaam zarkashi oo kale intuu maktabadaha yimaado wax lagu iibinayo oo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan waraaqay ku sidan jireen dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray axad alculamaa'i naxwiyiin waxay ku tilmaamaan salaad jimco ka soo baxay dabeetana salaaddii jimce masaajidkuu fadhiyey bacda alcasar buu ka yimi baa la yidhi isagoo sii socda casarka dabadii ayaa caadadiisa waxay ahayd bay idhaahdaan xataa inta uu soconayo inuu wax akhriyo mooyaane inaan wakhtiga iska luminin waa masaajidka markuu soo baxay gurigiisa sii gaadhayo waddada inuu wax ku sii akhriyo
waanu yaro dhagac cuslaa baa la yidhaahdaa. isagoo wax akhrinaya oo dhexda sii socda ayaa waddo yaroo luuqa faras ka daba yimi, dabeetana wuu riixay, god buu ku riday bay yidhaahdaan oo uu madaxa ugu dhacay. maalin labaadiiba wuu go'ay. waxay yidhahdaan wuxuu ka mid yahay culammadii qiraa'ada u dhibatay. waxaa ka mid ah jaaxid waxay yidhaahdaan kutubtiisaa ku soo duntay bay yidhaahdeen, dabeetana weydiiyey. waxay tilmaami jireen ragga qaarkood, imaam zarkashi oo kale, intuu maktabadaha yimaado wax lagu iiminayo oo kutubta ka ammaanaysto ayuu kumamkan meelahan waxa ugu jiri jiray bay yidhahdaan, waraaqay ku sidan jireen. dabeetana intuu kutubta meesha ku akhriyo ayuu qoran jiray. jaaxidkan waxay yidhaahdaan markuu si kale uga dhargo kutub garan waayey ayuu kuwa kutubta gada ayuu odhan jiray habeenkii iga kireeyaan meesha seexde. wuxuu rabaa intan caawa ah inuu soo jeedo isagu iyo buukskan akhriyo. kirada uu kiraysanaya waxa weeyaan inuu isku dayo inuu buukska kan u akhriyo, waayo matbacada ma jirin, kutubtu way yaraayeen. waa in kitaabka markaad gadanayso nin naasakha intaad u geyso uu kuu qoraa oo uu qoraa. markuu qoro haddana waa in sheekhii kitaabka lahaa ama ardadiisii sanadka haysatay loo geeya la tasxiixiya, inaan wax khataa la qorin, waxa la qoray inuu sax yahay oo editing dambe lagu sameeya. kadib markaasuu noqon karaa bug la ictimaado oo la akhriyi karo. waa ilaa kitaab laska qorqoro kasta lama akhriyaynin. waxaa ka muuqatay markaa dadka kani siday u dadaalayeen, ama qiraa'ada ay ugu xoog badnayd ama wax akhriska ay waxu siinayeen. wakhtigan casrigan aynu nool lahay ilaahay wuu fudaydiyey, aad bay u fududaatay. waxaan sitaa kombyuutar yaro kuwan yararoo la isku laalaabay intaan leeg, hal maktabadoo igu jirta 13,700 oo kitaaba ku jira. waa hal library yaro ku jira oo laga yaabo 20 gigabyte meelahaasi inuu yahay. idan maktabad hoolkan aa fadhidaan qaadi kartaad kombyuutarkaaga maanta ku sidan kartaa, wala fudaydiyey. ay kitaabaad u baahato ayaad ama library ka soo amaahan kartaa ama nadka ka dhex heli kartaa isagoo PDF ama wax ku doona ku qoran. ay kitaabaad maanta u baahato ayaad heli kartaa iyadoo la sharxayo oo codkiyo duubana oo nadka uu ku jiro, ama jaamacadka online-ka ha yeeshaan oo lacag yar laga qaado ood memberka noqoto, ama kuwan freega ah free softwareska meelaha ku duubayeen ay ku jiraan. ay fan kuu doonaya ha noqdo. maanta adigoo gurigaaga fadhiyoon meel looga bixin ayaad muxadis noqon kartaa oo mufasir noqon kartaa oo lugawi noqon kartaa oo saynisyahan noqon kartaa oo cilmi noqon kartaa. xataa mawaadda iskuulka lagu dhigto, iskuullada waxaa ku dhigataan iyadoo duuban oo la sharxayo, macallinkii sharxayo sabuuradda ku qorantay ayay ku jiraan nadka. luqa ingiriisiya si haddaad garanaysaa waad helaysaa ay class from class 1 ilaa iyo intaad ka baxayso ay subject ku jira, chemistry, physics, mathematics, wuxuu doonaa hada English, oo lecture-kiyo duuban oo macallinkii dhigayo sabuuraddana lagu qorayo aad arki karayso. yacni wakhtiga maanta la joogo qiraa'adii iyo kitaabadiiba waa la fudaydiyey. waxaad helaysaa wax kasta oo qoran wuxuu doona ha noqdo. ay masale maanta aad u baahato ee aad google-ka ku dhufato, waxaa laga yaabaa markaad iska dhaafto lectureska yarare iyo waraaqa yarare la qoro iyo less than more than 20 books inaad hesho masaladaa ka warramaya oo PDF files iskaga dhex jira. laakiin hamadii baa yaraatay, dadkii baa hamadu ka dhimatay, dadkii baan rabin inay koraan oo wax bartaan, dadkii baa noqday u qaatay inaan waxbaba baran karin. waxa laga doorbiday boodbood iyo cayaar iyo waxaan qiimo badan lahayn. umamku maanta marka la qiimaynayo say u kala horeeyaan waxa lagu qiimeeyaa aqoonta, say u kala aqoon badan yihiin. waddamaa jira maanta dunida ugu horeeya oo aan waddanadoodu resource ba lahayn. jabaan maxaa resource yaallaa? nothing. resource ma leh, laakiin aqoon bay leedahay. aqoontu iyadaa resource marka haddaad aqoon leedahay
adaa ah resourcekii rasmiga ahaa. dariskan markaa dantii laga lahaa anaan u soo koobay wuxuu yahay inay barataan in waxna la akhriyo waxna la qoro. in wax la akhriyo waxaad akhridayna culammada muslimiintii hore waxay odhan jireen qoraalku waa dabarka cilmiga bay yidhaahdaan. xoolaha geela haddaad taqaanin dee si aanu kaaga lumin waxaa lagu xidhaa dabar iyo seetiyo shakaal. xadhkaan geela lagu xidhxidho waa la xidhaa si aanu kaaga lumin. cilmiguna si aanu kaaga lumin waa la qoraa. waayo cilmi kastoo aad maanta fahamtay sanadkii hore waxaad iskuul ku dhigatay haddii maanta lagu weydiiye waxba kama xasuusinid. markii waad fahamsanayd waad wada garanaysay, laakiin maalintii imtixaanka aad ka baxday bay iyana evaporation qaadatay, ayuu kaa duulay wixiiba. haddaad se wax qorato waxa la qoro mar kasta waad raajici kartaa, waad ku noqon kartaa wax rasmiya. waxaan kusoo koobaya markaasi waxaa laydinka baahan yahay inaad waxna akhridaan waxna qortaan. sal allahu cala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi wasalam. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.